dood aad u xoogan ayaa ka dhalatay hadalkii ra'iisul wasaare Khayre uu shalay ka hor akhriyay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya. Wuxuu sheegay in fikirka muddo kordhinta doorashada ay keeni karto khalalaase siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuurba. waxaa kaloo isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoonto waqtigaasna si ay ugu qabsoonto waa in la geliyo xooga ugu badan oo la geli karo sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin sababtoo ah muddo kordhin waxay horseedi kartaa qalalaase siyaasadeed mid amni iyo mid dastuuri. siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa muddooyinkii dambe waxay ku celcelinayeen in hanaanka doorashada aysan noqon mid dhinac kaliya go'aankiisa gaaro, ayagoo ku celcelinayay in haddii doorashada waqtigeeda lagu qaban meeshaas ay ka dhalan doonto khalkhal amni iyo mid siyaasadeed, loona baahan yahay in dhammaan saamilayda siyaasaddu ay ka heshiiyaan qaabka doorashada. arrintaas waxaa xoojiyay dhankiisa ra'iisul wasaare Khayre oo carabka ku adkeeyay in lama huraan ay tahay in doorashada soo socota ay noqoto mid heshiis lagu wada yahay. sida golaha wasiiradu ay codsadeen marka waa inaan u shaqeynaa kulligeen in hadda la soo gaaray waqtigii dalkan iyadoo talada la wadaagayo laga samata bixin lahaa meesha aan joogno lana gaarsiin lahay doorasho dadka Soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin. daqiiqado kadib hadalka ra'iisul wasaare Khayre waxaa qoraal la soo dhigay barta Facebook ku leedahay Villa Soomaaliya oo ah meesha laga xukumo dalka. muhiimadda qoraalka ayaa ahayd in madaxweyne Farmaajo uu soo dhaweeyay hadalka Khayre iyo baaqa golaha wasiirada ay ah doorashada dib inaysan u dhicin. madaxweynaha ayaa ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay sii xoojinta dimuqraadiyadda, wuxuuna sidoo kale tilmaamay sida ay lagama maarmaan u tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga dalka, kuna dhacda jawi midnimo, wada tashi iyo isqancin. inkastoo madaxweynuhu soo dhaweeyay hadalka Khayre, haddana mucaaradka dowladda ayaa u qaatay khilaaf inuu soo kala dhex galay labada mas'uul. mucaaradka badankooda ayaa ku farxay hadalka Khayre, badankooda ayaa soo qoray Khayre wuu diiday damacii Farmaajo ee muddo kordhinta doorashada. waxaa jira sawirro aad mucaaradku ugu faafiyay baraha bulshada. waxaa ka mid ah sawirkan sida u jeedaan ra'iisul wasaare Khayre qoraalkiisa wuxuu ka reebay halku dhigga dowladda ee nabad iyo nolol. marka aad u fiirsato qoraalada ama muuqaalada uu Khayre soo dhigi jiray, waxaa mar walba qoraalada hoostooda uu ku soo qori jiray halku dhigga nabad iyo nolol. waxaa kaloo jirta in xildhibaano aad ugu dhow ra'iisul wasaare Khayre sida xildhibaan Mustaf Dhuxulow iyo senator Dhagdheer in ay magaalada Dhuusamareeb joogaan, ayagoo isla soo sawiray xildhibaano mucaarada sida Xasan Firimbi iyo senator Fartaag. mucaaradka qaarkood ayaa ku doodaya in ra'iisul wasaare Khayre ay ku matalayaan shirka Dhuusamareeb, balse ujeedada socdaalkooda lama oga. inkastoo mucaaradku ku doodayaan inuu khilaaf jiro, haddana in badan ayuu madaxweyne Farmaajo sheegay in doorashada waqtigeeda ku dhacayso. 6 Juun ayuu madaxweyne Farmaajo hadalkan ka jeediyay baarlamaanka hortiisa mar uu uga hadlayay arrimaha doorashooyinka. waxaa sidaas awgeed aan labada gole ee sharafta leh ee baarlamaanka aan halkan aan leeyahay mar kale guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, dowladda iyo dhammaan hay-adaha kale ay khusayso aan ku dhiirigelinaya, aan ku adkeynaya inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd, ayna ugu dhici lahayd sidii aad u ansixiseen iyo wakhtigeeda oo nabad ah hadduu ilaahay yidhaahdo. haddaba xiliyadan markii la gaaro siyaasadda Soomaaliya ayaa maalin walba meel u gorta, lamana qiyaasi karo siday noqonayso berri. daawadayaal fikirkaada nala wadaag, ma kula tahay inuu khilaaf jiro mise waxaad isleedahay wax khilaaf ah kama dhex jira labada mas'uul oo waa siday jecel yihiin mucaaradka? maxaa tala oo u soo jeedinaysaa labada mas'uul? sidoo kale hadduu channelkan kugu cusub yahay fadlan subscribe dheh, kambaleelka furo, like-tana ha naga iloobin. mahadsanid.